afartii bil noloshayda ugu dambeysay aaladan TikTok si fiican uma aan isticmaalin ama gabi ahaan ma aan isticmaalin dhamaantiin ma dhahayo laakiin waxaan arkay saaxiib badan oo idhahay dhaashan oo ku aawo dhaashan halkee ka baxday iyo kaftankaaga aan waxiisna sida wada ogtiin aniga kaftankayga ma ahayn wax la iska dhahayo wuxuu ahaa waxa la diyaari jiray oo loo fiirsaday sidaas daraadeed markii aan bilaabay shaqadan waa shaqo aad u adag waa isku keeni waayay inaan TikTok kaftan sameeyo iyo inaan shaqeeyo sidoo kale waxaan ka cabsaday oo aan ka lawlabeeyay in aan shaqadeeda saxda ah TikTok aan soo dhigo sababtoo ah waxaan ka baqay in aad maxkamad noqotiin oo aad maxaa la yiraahdaa idhahdeen shaqadan uma qalantid marka ay ugu soo celceliseen kadibna shaqadeeda aan soo kici waayo aad iyo aad u mahadsantiin saaxiibayaal hadda kadib waxaan isku dayi doonaa ugu yaraan anoo shaqadeeda jooga in aan wax idiin soo duubo laba comment iga ilaaliya maanta comment koowaad oo ah shaqa sharaf leh oo aan ogahay inaysan daacad idinka ahayn iyo comment labaad oo ah shaqadan uma qalantid aad iyo aad u mahadsantiin marna madalo